أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمسقا. أيها الأحبة مركا وحين لأني عبادات كأنه مدها لغا رباه وين ثمرة أخلاقية ياشا إيمان كأنه مدها لغا رباه شجرة الإيمان ورد بين لأني إيدا عبادات كل السنتهي إيدا أنا أخلاق كسير السنتهي sidaynu u kala iimaan badannay waa inaynu u kala akhlaaq badannay markaa waayo akhlaaqdu waa midhihii iimaanka iimaanku hadduu daciifo waxaa la daciifa midhaha ka dhalanaya waxaa la daciifa cibaadaadkii waxaa la daciifa hamaradii dhalanaysa akhlaaqiyaadkii saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa xaasinuhum khuluq mu'miniinta waxa ugu iimaan dhammaystiran kuwa ugu akhlaaq fiican waayo iimaanku dee wuxuu ku xidhan yahay baynu leenahay akhlaaqdii uu samaynayay saa daraaddeed haddii uu iimaankaagu weynaado macnaheedu waxa weeyaan in akhlaaqdaadiina ay weynaatay iimaankaagu hadduu daciifo akhlaaqdaadana waa daciiftay saa awgeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamay aliimaanu bidca wa situun aw bidca wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo lixdan ama dhowr iyo 70 qaybood waxa u sarreeya baa la yidhi kelimatu tawxiid waxaana ugu hoosaysa maxay imaatatu aladaa can ariiq jidka in qashinka laga daayo haddaad aragto ummad streetskoodu ku daafad tahay dacfuliimaan baa haya suuqeennu hadduu ku daafad noqdo innaga ka soomaali ahaan dhib baa ina haysato iyo dad badanoo muslimiinta kale ka mid ah gal robert fiske la yidhaha wariye caana kontineeyo sare wariyaa ayaa wuxuu yidhaahdaa qofka muslimkaa buu yidhi haddaad gurigiisa gasho waa guryaha dunida ugu nadaafad badan le buu yidhi waddada hormarta haddaad eegtana waa meelaha ugu foosha xun le buu yidhi su-aasha isweydiinta le buu yidhi maxay ku dhacday buu yidhi gurigana wuxuu rumaysay inuu isagu leeyahy waddadana inaanu lahayn wasaynu rumaysanay soo maa gurigaaga intaad soo fiiqdaa waad qashinka waddada kusoo saydhaysa gurigana waad ka ilaalinaysaa waddadana waad geynaysa nebigu wuxuu leeyahy iimaanka halka u sarraysa waa laa ilaaha ila allah halka ugu hoosaysana waa maxay waa imaadat aladaa can ariiq waxa dadka dhibayo aad jidka ka dudo walxayaau shucbatu min aliimaan buu haddana nebigu sii raaciyey xishoodkuna waa gabal iimaanka ka mid ah haddaad aragto ummad xishoodku ku yaraaday iimaankoodii baa dacfi ku jira ummad xishoodku ku yariyay haddaad aragto iimaankaa dacfi ku jira waxau nebigu tilmaamayaa laysa almu'minu biاlطacaani wala allacaani wala alfaaxish wala albadii mu'minku ma aha ku dadka dura inagoo ammaan baynu haysanaa iyo kaftar inay tahay waa isjareexayna buu leeyay yaa ku yidhi wax jurxi samee waan dhaawacay ilan jareexadan waa af carabi unbaad wadaayeen yaa ku yidhi dadka dhaawac ammaan waxaynu haysanaa qofba qofka kale inuu mudo bale dhaqankeenna waxaa ka mid ah qofka bini aadama intaad eegto ayaad halkuu iin ku leeyahay baad magac uga dhigaysaa madaxay iyo gacmay iyo dhegay iyo waxaynu la baxnaa waa maxay laangare waa qofkaad eegaysa meeshaad istiraahdaa lele halkaasuu iin ku leeyahay ayaad magaciisa ka dhigaysaa waa ceeb mu'minku طacaan maaha la yidhi qof caytama maaha oo dadka dura lacaan maaha qof wax lacnada maaha faaxish maaha qof afxun maaha badii maaha qof يعني أخلاق حنا عيتما معها النبي محمد تلمام يا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ورك آخر يا الله الرميسرو أما خيرك هذا لما آمو لما أردنا نقف ولو با أما خيرك هذا لما آمو وحل وحده محي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عدي إلهي الرميسا يا مال أنت آخره معناه وحويان هدي إيمان جرو وين مسألة دني جرتها وينو جرادتك أما خير ونكو هذلو أما ينسكا مصوين جرتها عكس كذا أحاديث آيات بدن باب كاكو صار ري وقت كوبية مركا إن عن إذن تلمام أبا الدنيا أياكو صار ري باب كا إيمان كيان لسكحره أخلاق ده تنعكس كذا واحد نبي قلت المامية ضعف الإيمانكو midhaha ka dhasha inuu dhaqan xumadayay dacfu liimaanka midhaha ka dhasha inuu akhlaaq xumadayay nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallahi laa yu'min qiila man ya rasuula allah
وفي بعض الروايات خاب وخسر قيل من يرى النبي يقول يهي إلهي بان كدارتي من رمينين الله كدارتي من رمينين الله كدارتي من رمينين إيمان لقى مهلين أما إيمان كامل أماله إلهي الرسول كيسي واكوما بالي لقفكني كان شوي يعني إيمان كيات كان فيه سا لودي دنيا واكي قال الذي لا يأمن جاره بوائقه وكان شاركيس وشاركيس كان نبت قليم النبوري أما هالنقطة قرية إنه كشارني أما هالنقطة قبائل إنه كشارني أما هالنقطة مقالوية إنه كشارني أما هالنقطة قبلية ودنا إنه كشارني قفك أن شاركيس النبت كهلني والشرق وضع كاسي إيمان ما لبو نبغت المامية يعني هدو إيمان في عن الشروه شارك أقول نبت قليل هواي النبي عليه الصلاة والسلام وحلي جبريل سيدو يقول علينا يوركه إلى أن ملايين النبي يقول شاركوا إن الله ورد دوره ويصدح على يامبا حديث كوضع تغاني جبريل وركه سيدو يقول عليي ويقول ذي وحن مودي النبي يقول إن لا يجارك هاي صدح له إن كان واحد أركي ساون كي بيرت على يوكا كلا كو دركا يا كي غورغا لا هاي غورغا كلا كو دركا وحن واس كو درغ يسبو يحوق يقف كان كوغو خيغا إناد wax ka qaato waxa uu nabigu tilmaamay لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كزنيسان يا مسنا يستمر كوزنده ku dhacay isagoo iimaan leh ka khamriga cabaya khamriga ma cabo isagoo iimaan leh ka tuugaahi wax ma xado isagoo iimaan leh ka wax boobaya abu nabigu yiri wala yantahibu nuhbatan dhat sharaf waa inta badan qolyahan dadka xooga wax kaga qaada ma khiyaamada dawladaha haysta iyo waxa booba wuxuu nabigu leeyahay boob ma sameeyo boobkaasoo dadku isha la raaco bal wuxuu daara dhistay la yidhaahdo wahuwa mu'min isagoo mu'mina wax ma xada buu nabigu leeyahay walaa yagullu guluulku waa waxa la wada leeyay sida jihaadka marka la galo fayga la soo qaato ama qaniimada la waxa la wada leeyay iyadoo aan dadka loo qaybin aad qaybtaada qaadanaad adigu sii gurto يعني حول الدولة دوكلا كميدا دتكو دم با كودا دحيسا دبتنا اد كقادو فإياكم إياكم بنا بقول يا حديث صحيحين كوكو يالا حديثكم حوت الماميا إيمانك يا عماشانين اسكو خدان تahay marka haddaad aragtaa acmaashan oo caadi noqotay macnaheedu waxa weeyaan ضعف الإيمان baa jira acmaashan haday rabnaa inaan saxna dadka iimaankooda weyn xoojinaa wadada ugu gooban saadaradeed nambiyadii ilaahay soo diray waxa uu yimaadeen bulshooyin kala nooc ah qaar dhaqaalaha ka xun yahay qaar akhlaaqdu ka xun tahay qaar siyaasaddu ka xun tahay ambiyaduna kuwaas ay u yimaadeen qaar fircoon baa loo soo diray oo boqor dadka leynaya qaar waxa loo soo diray qoomuluudki qaar waxa loo soo diray nabi shucayb oo qolo mikyaalka iyo miisaanka iyo wax kan takhfiifinaysa laakiin waxa oo dhan waxa la yidhi xagee ka bilow iimaanka اعبدوا الله ما لكم من إله غيره maxaa iimaanka looga bilaabaya midhaha ka dhasha in waxa kani joogsanayaan iimaanka midhaha ka dhasha ayaa ah in waxa kani joogsanayaan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa isagoo joogaagtiisa waxa lagu soo qaaday gabadh masalay ilaahay rasuulkiisa iyo gabadha heblaaya la yidhaahdaa waa gabadh salaad badan oo soom badan laakiin way carab dheertay baa la yidhi jaarkay dhibtaa markaasuu nabigu yidhi hiya fi naar naartay ku jirtaa naartay gelaysa wixii soon iyo salaad la sheegay haddana nabigu wuxuu leeyahay naartay gelaysa markaasaa waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo haddana waxa lasoo hadal qaaday gabadh kale waxaa la yidhi waa gabadh aan soonna badnayn sadaqana badnayn salaadeeduna badnayn laakiin inta yare aqadka ay hesho iyo waa sadaqadaysataa jaarkeedu waa ka nabadgalaa yacni waxoogaaga yare guriga yaalla wixii ay jaarka siin kartaa ama masaakiinta siin kartana waa siisaa waana carabkeedana cidda kuba dhabto waa gabadh miskiinad carabka ka ah hiya fi ljanna buu nabigu yidhi يعني waxay tilmaamayaan bay culimadu yidhahdaan axaadiista tani salaad iyo soonkii iyo cibaadaadkii hadday akhlaaqda fiicnaysiin waayaan in iyaga khalal ku jiro markaasaa la yidhi naar bay galaysa
salaaduba iyay badanin iyo soonka iyo tiradu yuu badanay xataa inta waajibka ah hadduu yahay laakiin uu tii la rabay yahay inay dhaqanka wax ka bedelaysaa la tilmaamaya si awgeed baa waxaa la leeyahay jannay galaysa xadiidka imaamu axmed baa wariyay waana saxiix baa culamadu ku tilmaamaysa idan ayuha alaxiba waa soo koobayaa ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa dadka mu'miniintaee liibaanay waxaa lagu sifaynaya inayiin kuwa cibaadadooduna fiicnaatay midhihii cibaadada ka dhalanaya dhaqanka iyo akhlaaqdaana ay wanaagsanaadeen sana ilahay wuxuu leey qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waa cibaada mu'miniin baa liibaantay waa kuwa salaadooda ku khushuuca markaasa haddana waxaa lagu xigsiiyey akhlaaq waladiina hum cani lagwi mucriduun waa kuwa laqwiga ka jeesta baa la yidhi markaasa haddana lagu xigsiiyey cibaado waladiina hum lizakaati faaciluun markaasa haddana lagu xigsiiyey akhlaaq iyo mucaamalaat والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وأخلاق معاملات يدقن مركز هدنا لقو حكسي أخلاق والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وكوا أمانة دي عهد قود الراعة كدبا هدنا عبادة لقو ختمي والذين هم على صلاتهم يحافظون culamadu waxay yidhahdaan waxaa cibaadadii iyo akhlaaqiyaadka laysu dhexgeliyey waa inuu iimaanku labadaba dhalo qad aflaxa almu'minuun baa la yidhi iimaankaa la sheegay wuxuu dhalayo ee ka soo baxayaa dhaqankan fiican iyo cibaadadan fiican kuwaasaa ilaahay yidhi waa kuwa jannatulfirdowsa dhaxlaya